waxaa guud ahaanba si rasmi uga bilaabay gobolka togdheere diiwaangelinta codbixiyayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaar ka mid ah komishiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer indhaydhayna ku soo sameeyay goobaha diiwaangelintu ay ka socoto. Markii kormeerkaasi soo ilaadan waxa warfidiyeenada la hadlay komishineer Kaltuul iyo madaxda saddexda xisbi qaran, waxaana ugu baaqan guud ahaan shacabka togdheere inay qaataan kaarka isdiiwaangelinta codbixiyayaasha. Dhammaan waxaan soo dhaweynayaa madaxda xisbiyada ee halkan nala taagan iyo bulshooyinka kala duwan ee reer Togdheere. Maanta sidaynu ognahay waa 27 bisha waxay noo bilaabmay diiwaangelintii labaad ee gobolka aynu ku talagalay oo socon doona muddo 4 maalmood ah. 4 maalmood maanta ay nooga bilaabantay oo 27 bisha ah ilaa 30 bisha hadii Ilaahay na gaarsiiyo. Waxa loogu talagalay 4 maalmood in la diiwaangeliyo qofkii markii hore aan qaan gaadhin, qofkii intuu ku celceliyay kaarkiisii hore ka gubtay, iyo qof haba ahaada qaan gaadhin laakiin aanay u suura gelin markii hore inuu isdiiwaangeliyo ama dalka ka maqnaada ama ha joogay. saddexda qof baa loogu talagalay inay 4 maalmood isdiiwaangeliyaan. Marka waa muhiim dadku inay ogaadaan yaanu ku noqonin qofkii markii hore isdiiwaangeliyay ee kaarkiisu sax yahay oo aan duplicate-na ahayn. Haddii 4 maalmood uu ka qayb qaatay kaarkiisii hore uu ka gubanaya. Marka qof kasta oo hore isu diiwaangeliyay kaarkiisuna sax yahay yaanu isdiiwaangelinin 4 maalmood aynu ku jirno iyo inta ka dambeysaba. Inta loo ogoliyay waa inta aan sheegay. Waxa kale oo jira dad iyaguna muhiim ah oo loo tixgelin doono oo ah qofka kaarku uu ka lumay. Qofka kaarku uu ka lumay iyo degmooyinka qofka doonaya inuu iska bedelo. Degmooyinka horena waa nagu celcelinay waxa weeyaan 23 degmo doorasho ayuunbuu qofku ka dooran doonaa ta uu doonay hadhow inuu isu bedelo, laakiin caasimadda gudaheeda oo kale looma ogolaanayo. 14 maalmood oo dambe oo la siin doona ayaa jira. 14 kaas qofkaas ka faa'iideysanaya, qofka kaarku ka lumina wuxuu ka faa'iideysanayaa muddada. Marka dhammaan waxaan ku faraxsanahay baanta gobolka Togdheere dhammaan iyo degmooyin aynaba gar adag ceelfweyn inay ka bilaabmeen diiwaangelintii labaad inay si fiican uga furantay una shaqeynayaan. Waxay idinku kaga wanaagsan tihiin goboladii hore dad soo shaqeeyay oo khibrad la ayaa maanta fadhiya goobaha. Dhammaan gobolka wacyi geliya oo fariimaha aan idin sheegnay hal la gaarsiiyo xisbiyada ha gaarsiiyeen bulshada ha gaarsiiso. Marka waxa fiican inay ka faa'iideysataan waa aragtaano saddex xisbi wada socdaan. waa doorashadii u horeysay diiwaangelintii horeysay ee saddex xisbi ay si wada jira wada shaqeynayaan. waxaana wax lagu noqon kara waxa weeye waa midnimadaas iyo wada shaqeyntaas wax lagu noqon karaa. waxaan doonaynaa inaynu insha Allah tacaala diiwaangelintana burcoydee waa ismuujiya de waxaad leedahay wax la isku haystaa magaalada labaad ee qaranka waa la isku haystaa boormeed la tartamise de ismuujiya hadii ka dambe de waa tasdaxad baan noqon doontaan hadda ismuujin weydaan. maanta waxaan filayaa sidaa la wada socotaanba waa diiwaangelintii fariin isku mid aanu diraynaa annagoo isku duuban saddexdii xisbiba waa aragtaan iyo xukuumaddiiba waxaannu ku wada soconnaa iyo shacabka reer Somaliland saddexdii gobol ay ka soo qabsoontay doorashadu. saddexda gobolba waannu soo wada marray. diiwaangelintanuna waxa weeyaan diiwaangelintii aynu qaadanaynay siduu qofku u codayn lahaa inuu kaarkiisa isdiiwaangeliyo si uu kaar ku codeeyo oo ku qaato. maanta buraan joognaa si fiican bay u bilaabantay intii aanu soo marray ilaa 7 goobood baan saaka soo marray. si fiican bay dadku hawsha u wadeen. goobahaanu soo marnayna way wada fiicnaayeen oo markaanu weydiinay howlwadeenadii waciladii ma jirin. sida komishineer Kaltuun sheegaysayna dadka maanta hawsha wada wadad waayo arago gobol hore ka soo shaqeeyay. waxaanu ku guubaaminaynaa uun 6 degmo doorashada in dadku kaararka qaataan isdiiwaangeliyaan. dadka loo ogol yahayna waa taa la idin sheegay waa dadkii qaan gaadhay doorashadii hore kadib, dadkii aan markii hore qaadan kaarka iyo dadkii intay 2 jeer codeeyeen kaarka ka gubteen oo kaliya ayaa loo ogol yahay 4 cisho inay isdiiwaangeliyaan. dadka waxaa kaloo jira 160,000 ka badan oo kaard baa komishanka yaalla. kuwaana waxa komishanku caddeeyeen inay soo raacin doonaan marka kaarka la bedelayo oo qofkii berigii hore aan qaadan kaarka isna uu helayo kaarkiisii. Wasiir Cali Ismaan Xalis, telefishinka caalamiga ee gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheere.